madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa qasriga madaxtooyada ku meelgaarka ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo ku qaabilay wafdi ay hogaaminaysay ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Anita Kiki. kulanka madaxweynaha iyo wafdiga oo ay qayb ka ahaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed iyo agaasimaha madaxtooyada ayaa waxaa looga hadlay arrimaha abaaraha, doorashada iyo amniga. waxaa si aad ah looga hadlay kulanka u dhaxeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed iyo wafuudda ka socotay qaramada midoobay sidii loo sugi lahaa amniga guud ee deegaanada Koonfur Galbeed isla markaasina al-shabaab loogu xureyn lahaa qaar ka mid ah degmooyinka dadka shacabka ay ku dhibaateeyaan. sidoo kale kulanka ayaa looga hadlay dadejinta iyo dardargelinta howlaha doorashooyinka iyo sidii loo dhameystiri lahaa. arrimaha abaaraha ayaa si aad ah looga hadlay iyo sidii gargaar bani'aadanimo loo gaarsiin lahaa dadka ka soo barakacay degmooyinka iyo tuulooyinka hoos imaanaya Koonfur Galbeed ee xilligan ku dhibaataysan magaalada Baydhabo isla markaasina ay saameeyeen abaaraha ka jira Soomaaliya. kulanka markii uu soo cidlaaday waxaa warfideenka la hadlay isla markaasina u faahfaahiyay waxyaabihii laga wada hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta, maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Axmed Madoobe Nuno Maxamed. bismillaahi raxmaani raxiim. maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 1 Maarso 2022 ayaa waxaa magaalada Baydhabo booqasho ku yimid wafdi ay hogaaminayso ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Mrs Nikki iyo wafdigeedii waxay kulan la qaateen oo muddo socday madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada. kulankaas oo arrimo badan looga wada hadlay ay ka mid tahay arrimaha abaaraha oo saameeyay Koonfur Galbeed, arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha amniga. waxaa lagu fogaaday arrimaha abaaraha iyo siday gacan u geysan lahaayeen qaramada midoobay iyo hay'adaha iyo deeq-bixiyaasha. khaasatan waxaa xoog la saaray arrinta cakiran ee ka taagan Dinsoor iyo barakac xoogan ee ka socda ee magaalooyinka kale ee Koonfur Galbeed ayadoo dad badan ay ka soo barakacaan saa ogsoonahay magaalooyinkaas oo isugu darsaday abaara iyo amni xumo iyo biyo la'aan. waxay ballan qaadeen in ay gacan xoog leh ka geystaan oo si emergency uga jawaabaan arrimahaas. midda kale waxaa laga hadlay arrimaha doorashooyinka ayagoo ku bogaadiyay wafdiga doorka madaxweynaha uu ka dheelay guud ahaan doorashooyinka socda ee Soomaaliya iyo gaar ahaan horumarka laga sameeyay doorashooyinka socda Koonfur Galbeed ayadoo la xaqiijiyay ilaa hadda in kuraas ka badan 50 kursi la doortay oo lagu qabtay labada goobood sida lagu ballamay September 17 agreement ay ahayd. Siraaji Shaysaaq warbaahinta qaranka Baydhabo.